marka hore waa mahadsantiin wariyaasha saxaafadda guud ahaan maanta halkan aniga isugu yeedhay waxaan isugu yeedhay inaan ka sii daayo iclaan ama maxaan ku rahdaa announcement aniga ugu saabsan waa maqlaysay baryahaba saxaafaddu waxay shaydaanka intuu isdul fuulfuulo ayuu carshiga soo dhegaystaan markaasuu soo daadega ilaa waxaasaa soo socda si loo aamino inuu wax sii ogaaday ama wax sii saxaafaddu baryahaba way hadal haysay meelo badan baa wax lagu qorayey runtii laakiin maanta ka hor anuu meelaan ka hadlay iyo cidaan wax u sheegato nama jirto maanta waxaan goostay inaan iclaankan isugu ku yeedho waana go'aan aan qaatay oo aan ka qaatay inaan ku qaatay inaan ka baxo xisbigii waddani ee aan ka midka ahaan jiray waa laga yaabaa in dad badani sababo badan isweydiinayaan ama maskaxdeennaba ay ku jirto su-aalo haddeerto aad diyaarinaysaan oo leedihiin sababaha iyo waxaa ku saabsan hase yeeshee waxaan idiin sheegayaa sababaha aan go'aanka ku qaatay waa kuwo shaksi ah oo ii gaara aniga mana aha wax aan haddeer xilligan la joogo haddii jiraan kuwa ka baxsan kuwa shaksiga ah waxaan haddeerto diskas garaynaya amaan cid doonaya inaan la wadaago hase yeeshee waxaan ummadda reer somalilan saaxiibadaydii xisbiga aanu ku wada jirnay kuwii aanu maan wadaagta ahayn taageerayaashaydii intaba aan ogeysiinayaa inaan maanta laga bilaabo ka baxay xisbigii waddani sababo aniga ii gaara aweyd waanan ka xumahay asxaabta iyo dadka aanu himilada iyo aragtida siyaasadeed aanu wadaagnay ama aanu maan wadaagta ahayn in aan hawsha aanu soo wada waday muddada aan kaga baydho qof walibana mar buu noloshiisa dee go'aama gaadhaa oo maxaan ku dhahdaa ama xisbi ha galo ama xisbi ha ka baxo ama ha iska dhoofo ama tabliiqa ha raaco ama noloshiisa mar buu dee wax ka bedelaa oo go'aamo noloshiisa ku saabsan gaadhaa maanta taasay taagan tahay aniga waxaan jecelahay ciddii ka xumana inay iga raali noqoto ciddii ku faraxsanana inay ku sii farxdo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu xildhibaan waxa weeyaan baa tahay iskamaad dhaqaaqin culays baa jira maxaad ku subabaynaysaa isfiseega mana qarsoona in aad sii kala durkayseen bilahan ugu dambeeyey guddoomiyihii xisbiga oo saaxadda siyaasadda waad ka maqnay maxaa culayska ugu weynee ee nafsad jebiyey hankaagii intaa gudubtaad ku soo gashay waa maxay wal arta guddoomiyaha xisbiga waan wada hadalnay hadal baanu ku kala tagnay aanu labadayadu isla qaadanay oo ah inaan xisbiga ka baxo maanaan kala fogaan waxa weeye go'aankanna sidii aan idin sheegay waa go'aan anigu aan qaatay oo aan ku sababeeyey sababo aniga ii gaara dadku soomaalidu wax walba waxay u haystaan in la sheergarayn karo ama ay dadka ka dhexeeyaan wixii aniga ii gaaray waa wax aniga ii gaara waxaan cid la sheergaraynayo
ama aan bulshada la wadaagayo maaha haddii ay jiraan way jiraan xisbi walba way dhex yaalliin aragtiyo kala duwan fikrado iskhilaafsan dad kala maan ah maxaan ku rahdaa aaraa kala duwan xisbi walba way dhex yaalliin kulmiyana way dhex yaalliin ucidna way dhex yaalliin waddanina way dhex yaalliin waa wax dabiici ah laakiin maanta anugu waxaan ku go'aan qaatay xisbiga inaan ka baxo sababo aniga ii gaara awgeed maadaama ka baxday xisbigii waddani muddada dheer ku soo jirtay xageed ku biiraysa qofka muwaadinka ahi xaq buu leeyahay inuu xisbi galo inuu ka baxo inuu mid kale ku biiro inuu ku jiro inaanu midnaba gelin suuqiisa joogo dadka badankoodu somaliland dadka badankoodu xisbiyada kuma jiraan xisbiyada inta ku jirtaa waa in yar oo weliba iyagu xisbiyada ku kala warwareega weeye waxba kuma jabna haddaan noqdo muwaadin dalkiisa jooga bulshadiisa u adeega inta uu karayo hase yeeshee haddaan ka maarmi waayo inaan xisbi galo go'aankayda goorteeda iyo meesheeda maanta xisbigan ka baxayo mid baan galay go'aankaygu kamaha maanta waase laga yaabaa inaad de xisbiyada kale mucaaradkaa mid ku biiro mucaaradka xisbiyada kale dee waddanka dalka